shalay iyo maanta waa xubin aynu ku qaadaa dhigi doonno isbeddelka waayaha insaanku waqtigu ku keeno. haddaba maanta waxaynu kaga hadli doonnaa dumarka shalay iyo kuwa maanta marka laga eego dhinaca guurka waxaa ku yimid isbeddel. kadib faallada maxsuulka jawaabta idinkaa ka munaaqashoon doono xigmado laga soo minguursha odayaal hore waxay ahayd sida tan. dumarka shalay waxay ahaayeen iga dhal aan dhoorte, ii dhiibo aan kuu dhaqaaleeye, ii dhoola caddee aan soo dhowaade, i dhaqaalayso aan dhaxalkaaga tago, i dhaliil aan iska dhaafe, i dheh xabiibti aan dhankaaga joogo. hadday dumarkii shalay caynkaas ahaayeen bal ka waran kuwa maanta waa nuucay. iga dhal aan kugu dhibe, ii dhiibo aan kaa dhigtee, i dhaliil aan kaa dhaqaaqe, i dhirbaax aan qaylodhaan dalbade, i dhaawac aan dhakhtar ku dhigay, i dheh beebi aan kaa dhargay, i dhegayso aniga keligay, waryaa talada ii dhaaf. dumarka maantoo ma dhabbaa sheekada? ka warrama haddaad meel dhexe isugu timaadaan idinka iyo kuwii shalay. ku dhammayna xaajada dhaqanka yaan laga tegin. wixii dhiilo wakhtigu keeno yuu naga dhaadhicin dumarkeennaahu. fadlan hablaha shalay iyo kuwa maanta laagta sheerta iyo sabskraabka waa dhankii.